السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء على حسن محمد وكم مجا دير ديقو waxaa deganahay wadanka Belgium waxaa gudoomiyaha ganacsatada Soomaalida ee Belgium waxaa wadankan jooga 25 sano waxaa ahayn dhalinyartii burburka ka soo carartay ee wadankan u soo haajirtay niyo saaw ogeed wadankan maxaa la lahaa Belgiumka wuxuu ahaa meel la maro wada la maro ama Ingiriis laga siyaado ama Holland looga gudbo Soomaalida wadanka Belgium ma ba aqoonba waaga ani iimaanay 10 sano u dambeysay last 10 years Soomaalida way ku soo badatay aad ugu soo badatay Soomaalida dhismaha asaasiga hoose ka bilowday dukaamadii maqaayadihii iyo waxyaabihii wadanka loo dhoofinayo kale oo cargo ah step by step hada kor u soo kacayaan sidoo hore waa ka fiicannahay Soomaalidu way soo badatay waxaan rajaynaynaa dadka wadankooda wax la qabsaday ama ganacsiga wadankooda ka qayb qaatan inaan ka mid noqon doono insha Allah waxa uu sababa wadankan ajnabiga kale waxay soo galeen sida Morocco kale Turkiga kale wadamo badan waxay soo galeen awiyaashooda wadanka soo galay aabayaashooda soo ganacsaday oo ganacsiga sameeyay carruurtii hadana wado marka meeshan jiilba jiil isku soo bedeleen anaga laakiin jiilka u horeeyanahay generation koobaad jiilkeen markii uu dhamaado ama generation kiina oo hadda uu bilaabo carruurteena si dhaxli doonto way weynaa doontaa laakiin hadda aad sidii hore way ka fiican tahay inkastoo wadamada waaweyn ee Yurub ee Soomaalida ay degto aan la tartami karin ama America laakiin boqolkiiba in cotton shan sidii hore way ka fiican wadanka mar walba waa la sameyn jiray in madaxweyne la soo dhaweeyo xafladda ugu horeysana ma ahayn xaflado fara badan aan sameynay jadana jaaliyada Soomaalida ee Belgium Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii hore markii la doortay waa u sameynay waxa qabadkiisii markaa aragnana annaga isku tagnay jadana ganacsatada Soomaaliyeed ee Belgium waxa go'aaminay in xaflad u qabano waayo markaa aragnay waxa qabadkiisii laba walxaato waxa ku soo raacnay oo ugu horeyso in madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sameeyay abni aad u balaaran oo ku guul dareystay dawladda asaga ka horeysay sida in uu doortay dad xigmad leh macallin Mahdi oo kale Mahdi Muumin macallin Mahdi inta loo yaqaano gobolka loo dhiibay ninka loo dhiibay maxaa la booliska aadan dheere oo ah kusimaha nisa iyo mahasalaad muxudiin warbac oo aad asna ugu shaqeeyay dhinaca amniga marka aan aragnay waxay naqatay in taageerno waayo waxa arki jirnaa xafladaha in lagu qabto hotel loo kireeyo dawladda markii dadka la hadlaysa xaflada iyo wax qabanayso shir in ay u jaarto hoolal iyo hoteelo laakiin waxa aad qalbigeen u soo jiitay barxad kaaraan ku taala markii lagu qabto xaflad iyo dawladda qabanayso kaaraan aan ognahay in ciyaal weero abni darro ka geysteen aad u baahsan oo maalinta xataa la mari karin inay gaareen heer xaflad lagu qabto barxadeeda aan hotel lagu qaban waxa kale aad noo soo jiitay in xamar maanta hada ka baxdo ilaa ay ka tagto in meeshii la yiraahdo Beledweyne dhulka mare waagi hore diyaarada Beledweyne xamar loo kala raaci jiray jowhar xamar diyaarada loo kala raaci jiray dhinacan xeebta marka marto cadalaha hada dhaafto in masaajid Ali Guduud ma gaari karin maantana in marka xeebta aan marto ilaa ay celeera tagay dhinaca kale marka ka baxday ilaa aadaya baa la tagay ilaa ay hiiraan oo dhan mare abni aad u fara badan madaxweynaha sameeyay waana ku amaanaynaa aad iyo aad waa meel markii hore tirxi ku dhasho markii tirxiga laga bixinayo waqti qaadataa dadkan musuqmaasuq sameeyahay waa dad abuurnaay ee meesha ku abuurnaay marka maalinba mid in la siibo waaye ilaa laga siibone oo meesha la gubo tirxiga kama dhamaado dadkan maalinba mid in la siibo waaye hadda taliyaal badan la bedelay
dad badan la bedelay oo madaxweynaha iyo dawladda bay bedeshay musuqmaasuqna uu dhamaanaya insha Allah waa Soomaaliya kaliya ma ahe waxay ka jirtaa musuqmaasuq Afrika oo dhan ay ka jirtaa waa wax adduunka curyaamiyay wadamada hormaray ma ahe inteeda kale waa waxa curyaamiyay laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu noo ballan qaaday oo afkiisa keena musuqmaasuqa iyo tuugta iyo shabaab isku soo inuu dagaalami doono muddada sanadka uu joogay madaxweynaha waxa u jeednaa inuu aad iyo aad ugu maxal lahaa oo u shaqeeyay in daraad shalayta uu maray baarlamaanka uu tagay uu cadeeyay maxal la dhahaa in uu codka shacabka loo celi doono oo Soomaali nin iyo cod ay noqon doonto nin walbo iyo codkiisa inuu noqon doono marka Ilaahay la garab galo waarna talada inay anaga noo soo noqoto marabno in madaxweyne noo soo magacaabo inuu wasiir qof noo soo magacaabo in anaga doorano hadduna anfici weyn in anaga aad kala naqano wixii aad ku dooranay raja aad u fara badan aan gashay nana gelayso waana laga yaabaa 4 sano wixii uu noo ballan qaaday shalay markii la dooraayay waxay ahayd inuu abni iyo al-shabaab la dagaalami doono al-shabaab uu la dagaalamay laga bilaabo xamar ilaa iyo kaalkacyo labada maamul goboleed al-shabaab uu ka sifiyay waxay rodhow Malaysia ku haray ciyaal weero bahalla ah ee ka dhashay xamar ee looga tagay markuu joogay looga tagay uu aragtay sida uu ku dhigay iyo shirka xamar lagu qabanayo waa aragtay in maxaa la dhahaa barxadaha hadda siba barxada kaaraan kale lagu shiraayo waxay jiri jirtay in madaxda qaranka ay ku shirto hotel ama hool ay dawladda maamusho laakiin hadda waxay maraysaa meel aad u fiican ilaah baa og horta 4 sano say noqon doonto laakiin wuxuu nagalshay rajo aad u weyn oo ah inuu dadar geli doono balanta oo ballan qaaday 4 sano gudahood waxa ku noolna horta qaaradda Afrika oo dhan musuqmaasuq ma ka dhamaado musuqmaasuq meeshuu galana wuu ka daran yahay shabaabka la dagaalamayo waxa ka sii daran musuqmaasuq waa dawladda inay la dagaalantaa ay meel ugu soo wada jeesataa waa bahal dadka ku dhex jiro musuqmaasuqa qofkaas oo bahalka laga dilina ma caafimaadaya qofka marka musuqmaasuqa aad in loola dagaalamo waaye xasan sheekh madaxweynaha inuu noo ballan qaaday inuu la dagaalami doono waana rajaynaynaa inuu la dagaalami doono